kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtiin maanta waxaa idin hayaa dhacdo la yaab leh dhacdadan waxay ku saabsan tahay laba gabdhood oo saaxiibo ah ayaa mar qura waxay go'aansadeen inay hal nin guursadaan adigana daawanaysi gabaray ma samee lahayd saaxiibada inaad hal nin wada guursataan adigana daawanaysi wiilo haddii arrintan kugu dhacdo laba gabdhood saaxiibo ah ku dhacan hal nin inaa wada guursadaan rabnaa adiga ma guursan lahayd oo mas'uuliyadaas ma qaadi lahayd wixii fikradaada hoosta nagu soo dhiib waxaa idin ka hayaa muuqaal ku saabsan intaad muuqaalka sii daawanaysin lacagta iska saar haddii aad ku cusub tahay subscribe-ka iska saar haddii hore nala joogto lacagta iyo subscribe-ka iyo share-ta midbaha ka hilmaamin hore sii share gareey dhacdadan waxay ka dhacday dalka Kenya isla markaana waxay ku dhacday laba gabdhood oo saaxiibo ah Sara iyo Safiya waa laba gabdhood oo Soomaaliya sida wada jeedin sawirkan in badan ayay ku fikiri jireen inay hal nin isla guursadaan in badan ayay ku riyo jireen in badan ayay raadin jireen waxayna go'aansadeen mar qura inay hal nin isla guursadaan hal nin oo ka dhaxeeyo saaxiibtinimadooda sidii u kala fogaanin hase ahaatee meen u suurtagelin mar badan ay niman la hasaabeen ayaa nimankii markii fikradu u bandhigeen ayay dhaheen ma sameyn karno mana qaadi karno mas'uuliyad laba qafood ah isla markaana markii sanado badan ay sugeen ninkan ayaa ujeedin ayay Kenyaatiga ayay u sheegeen fikradii qoraya shukaasa jirtay tii kale ayaa u bandhigtay asna wuu ogolaaday isla markaana waxa la siiyay kale inuu hal guri wada dejiyay oo hal guri wada degan yihiin oona ka dhaxlin maseer iyo khilaafaad waxay sheegeen inay farxad ku jiraan farxad la yaab leh ku jiraan halkooda nin ay ku faraxsan yihiin isla markaana ay ku jiraan nolosha ugu fiican mid walba waxay sheegtay saaxiibada adduunka oo jeceshahay inay haysato maalin walba markay soo kacdo haween walba indheeda qabanayaan ninkoodana oo marna ka tagaynin isla markaana arooskii ay hal mar dhigteen oo hal guri ay degeen waxaa la sii yaab kale inay hal mar uur wada yeesheen dhacdadan ayaa hadalhayn badan ku yeelatay dhanka baraha bulshada markii la joogay Kenya waxayna dhacday sanado hore la soo dhaafay isla markaana hadda ayay labadii gabdhood isla haddana sidii uur soo yeesheen ayay soo bandhigeen qisadooda iyo saaxiibtinimadooda halkii ay ka bilaabatay haddii ma ku cusubtaan subscribe-ka inuu hadda joogto lagta and share-ta nala wadaag adiga wixii fikradaada ka qisadan hoos nagu reeb